السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنت wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii labaad aan idiin soo gudbanayno maanta oo Isniin ah. Taariikhdu waa 2 Maarso sanadka 2026. qodobada barnaamijka dhammaantood waxay noqon doonaan dagaalkaasi laba lixaadsaday ee ka socda mandiqada bariga dhexe. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in daakum laga dhigay xafiiskii Netanyahu talow isagu ma badbaaday mise way la tagtay. haddaba tafaasiisha sheekada Netanyahu xaalkiisa iyo xafiiskiisa wararkii ugu dambeeyaan idin haya. waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa Iiraan ciidanka ilaalada kacaanka oo sheegay inay la soo baxeen gantaalo cusub oo ay ku difaacayaan hawadooda kuwaasoo diyaaradaha ugu tagaya meelo ka baxsan hawada Iiraan iyadoo la soo daadiyay maanta qaar ka mid ah diyaaradihii Mareykanka uu ku dhaaranayay. Trump oo xaaladdu ay ku xun tahay bariga dhexe oo wada gubanaya. goobihii shidaalka Sacuudiga, Kuwait iyo Qatar ee gaaska iyo shidaalka ayaa la sheegay in dab uu ka kacay. Sacuudiga iyo dowladaha khaliijka oo ka fakaraya arrinkan waxay ka yeelayaan ma dagaalkay ku biirayaan. haddayse ku biiraan ma drones ayay sheekada ugu ekaan doontaa gantaalaha Iiraan ay ku garaacayso Israa'iil soo dhankan uma soo wareegi karaan. sheekooyin wareersan ayaa socda. wararkii ugu dambeeyaan idin haya. Xisbullah oo sheegtay inay garaacday goobo istaraatiiji ah oo sirdoonka iyo militariga Israa'iil ay lahaayeen iyo Israa'iil oo ku hanjabaysa inay khaarijin doonto wadaadka ugu sarreeya Xisbullah. haddaba xaalka bariga dhexe oo cirka galay wararkii ugu dambeeyay oo aan idiin soo ururiyay ayaynu barnaamijkeena labaad ee galabta ku faahfaahinayna. inta aan ku jirno asxaabay warar cusub hadday soo kordhaan waan idinla socon. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo. waa barnaamijkii labaad, maantana waa Isniin. xaaladda way sii adkaanaysaa bariga dhexe. shidaalkii adduunka oo dhan waa qaaliyoobay, gaaskii waa qaaliyoobay. Yurub waxaa la sheegay 50% gaasku inuu cirka galay. shidaalka adduunkana uu cirka galay. isbaara waxay u taallaa Hormuz meeshii uu soo marayay shidaalka adduunka ugu badan Iiraan. haddaba wararkaas iyo warbixino kale ayaynu barnaamijkeena mid ugu faaqidi doonaa. marka hore waxaynu ku bilaabaynaa shirkii jaraa'id ee galablaha ahaa ee uu qabtay afhayeenka ilaalada kacaanka Iiraan. haddaba aynu tusoo telefishinka Al Jazeera waxay leedahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen inay qaadeen weerarkoodii 11 ee howlgalka ay ugu magac dareen Al-Wa'd As-Sadiq 4. ciidanka Iiraan waxay sheegeen in weerarka 11 ay ku qaadeen Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe. weerarkan waxa uu isugu jiraa yiraahdeen gantaalo iyo diyaarado drones ah. dhanka kale ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen in markaa ay u suura gashay gantaalo cusub oo ay la soo baxeen oo hawada lagu difaacayo inay ku soo ridaan 3 ka mid ah diyaaradaha dagaalka uu ku dhaarto Mareykanka. waxay dhanka kale sheegeen inay bartilmaameedsadeen xafiiskii Netanyahu uu lahaa iyo goobo kale oo ay xukuumaddiisu lahayd iyagoo isticmaalay markii ugu horeysay nooc cusub oo la yiraahdo gantaalka Khaybar kaasoo la sheegay in nagta looga saaray Netanyahu goobihii uu ku sugnaa. afhayeenka wuxuu sheegay dhowr qodob oo muhiim ah. midda koowaad wuxuu yiri Al-Wa'd As-Sadiq 4 lila horta sideeda inaa barano waa dagaalka waa ku jirnaa laftirkeena dhinaca uga jirnaa dagaalka howlgalka magaciisa waxa la yiraahdaa Al-Wa'd As-Sadiq. macnaha yaboohii runta ahaa oo dhabta ahaa waay. macnaha waxaanu been ma ah waa Iiraan. Al-Wa'd As-Sadiq la yiraahdaa. waliba Al-Wa'd As-Sadiq 4 waay kan. kuwii hore ka horeeyay Al-Wa'd As-Sadiq 1 2 wax saas soo maray. hadda kan waa 4. marka xisaabana loo sheegaa maalin kasta weerarkii 11 kiisaas. marka kii 11 oo saakay la qaaday
maxaa dhacay waxaa la isticmaalay gantaalka la yiraahdo khaybar alaabta joogta culus waaye waa idin sheegay alaabtii aan baranay waa 12kii dagaalkii socday marka gantaalkan khaybar la yiraahdo ayaa waxaa lagu sii daayay Netanyahu xafiiskiisa iyo xukuumadda meesha ay joogto jugta laga saaray baad qiiqa isqabsaday odagii maarteen xaguu aaday Netanyahu aawi ma joogaa horta Israa'iil mise waa cararay oo wuu qaxay xaguu ku maqan yahay ma saldhigyadan Mareykanka uu Qubrus iyo meelaha ku leeyahay oo Iiraan cayrsanayso galay xaguu jira ma waxba gaaray ilaa hadda war laga maayo dawladdiisuna wax war ay ka soo saartay male laakiin Iiraan waxay leedahay waa mutaabacaynayna meel kasta oo aan garaacnay dad baa noo joogo wararka waa nala soo siinaya odagii meesha geesinimo uu ku yimaado xafiis ma jira murshid maaha oo shahaado raadinayay ninkii aayatullaahiga wuxuu yiri meesha xafiiskayga kama baxay haday rabaan waa idirayaan shahaada qaadanaya war soo bax dhulka hoostiisa soo galmay ninka asaaba ka horeeya diyaaradda ii kiciyo leeyahay badhaankaas aan la soo istaagay ninkaas marka isku mid baa sheekadu marka halkaas waa qodob oo ninka afayeenka ciidanka ilaalada uu sheegay qodobka labaad uu sheegay waxa waaye inay garaaceen iyagoo isticmaalaya diyaarado daroora deegaanka la yiraahdo bi'ru sab'a waa meel Israa'iil dhulkii Falastiin laga boobay waxa dhan laakiin Israa'iil hadda way sheegataa bi'ru sab'a saldhiga sirdoonka ugu weyn Israa'iil ayaa ku yaala nagtaa laga saaray asagan waa la garaacay waxyaabaha kale oo afayeenka ilaalada kacaanka goordhow shirkiisa jaraa'id uu ku sheegay maxaa ka mid ah diyaaradihii Mareykanka uu ku dhaaranayay 3 ka mid ah waa yamuudeen dhulka ala soo dhigay maalmahan waa idin sheegay waxa idin lahaa nimanka Mareykanka iyo Israa'iil way u suurageli laadahay hawada Iiraan inay koontaroolaan markay hawada galaanba jugta laga soo saaray Iiraantii ay ogaayeen ma Chinese iyo Ruushia alaabay ku soo gureen meesha oo difaaca cirka ah marka diyaaradahooda waxay sameynayeen Kuwait iyo Iraq iyo meelaha xuduudaha inta istaagaan ayay ka garaacayaan Iiraan diyaaraddu marka awood ay u leedahay meel xuduudada ka baxsan inta istaagto inay ku soo garaacdo haddana soo laabato haddana ku soo tarna inta istaagto ku soo garaacdo marka baata wuxuu yiri waxaan la soo baxnay difaacaad jawiya alaab cusub oo ciidanka difaaca cirka ah si aan diyaaradahan banaanka naga taagan aan meeshooda ugu tagno aan ku soo salaadno aan ku ridno wuxuu yiri marka xuduudda Kuwait diyaarado joogay oo na soo garaacayay ayaa waxaan sameeyno yiri gantaalihii ku aadinay 3 aan cadow kuwii kale meelaha naga soo tooganayna fogatax baaragtay alaabtaana lala soo baxay oo xuduudka meel ka baxsan diyaaradihii meesha soo istaagay wax soo tuuray ayaa 3 la riday maxaa dhacay marka Mareykanku maxay kaga jawaabeen Mareykanku waxay leeyihiin waxa naga soo riday Kuwaitiyiinta diyaarad Kuwait waxa la sheegtay in aad ka soo rideen Iiraan sadiiqa leh macna rasaas saaxiib ah ku dhacday diyaaradaheena waxa ku dhacay rasaas saaxiib macna oo saaxiibka uu soo ridaa ku dhacay saaxiibka yaa waa ciidanka Kuwait ayaga naga soo riday marka nin khabiir oo la wareysana wuxuu yiri ciidanka Kuwait marxaladda hadda lagu jiro awood ma leeyihiin horta inay ayagu hawadooda kontroolaan Mareykanka hawada haysta saldhigyadiisa ayaa nagta laga saaraya xalay maxaa la gubay waxa la gubay safaaradii Mareykanka ee Kuwait qiiqeeda baxay marka Mareykankii meesha deganaa isaga difaaca hawada ku jira asaga wax walba riday ma asaga diyaaradiisa iska soo riday marka waxaas yaa noo sheeginayaan hadda marka Kuwaitka marka waxay leedahay si qalad oo ku soo dhacay diyaaradaha lagu soo daadiyay mid ma aha laba ma 3 ma qalad ku miiska socona mid haday qaldanto tan kale ma laga joojinayo marka waxay leeyihiin Iiraaniintu waxaas wax ka jira mar hore afayeenka annaga meeshooda Kuwait aan ugu tagnay ayaan maartay aan ku garaacnay oo aan jugta ka gelinay waaye
marka waanu sii wadaynaa wararkaa soo kordhay. jiradda la yidhaahdo ra'yul yawm ayaa iyaduna wax ka qortay sheekada weerarka xafiiska netanyahu. waxay goordhow qortay, waxay leedahay iiraan waxay isticmaashay sawaariikhda la yidhaahdo khaybar. ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen xafiiska netanyahu iyo halka uu degan yahay uu ku sugnaa taliyaha ciidamada cirka israa'iil. waxaana ku qaadna yidhaahdeen hujuum daqiiq, macnaha wax la huba waay gantaalka uu ku dhammaaday. hujuum daqiiq haddaa maqasho macnaha firra gaaray iyo maaha, alaabtii khaybarka oo socday ku da-ay waay meesha ku dhammaaday. taliyihii ciidanka cirka iyo xafiiskii netanyahu waa ku da-ayeenaa laleey. jaridda waxay qoraysaa, waxay leedahay waxaa la yidhi khaybarka wuu ku dhammaaday, hujuum daqiiqa ka dhacay meesha, waa la shiilay, meeshaa lagu shiilay. xaalka marka halkaasuu marka sheeka maraysaa. qodobka labaad, adduunkii maxaa socda? waxaa lagu leeyahay yurub gaaska 50% kor u kacay. hadduu dagaalka sii socdana cirkaasuu sii gelayaa. baasiinka meel kasta waa kacay, xataa maraykanka adduunkii oo dhan u kacay. shirkadihii soo saarayay goobihii shidaalka ayaa jugta la bilaabay in laga geliyo. sacuudiga aramco shirkadda la yidhaahdo goobaheedii shidaalka jugta laga saaray. sacuudi waa qaylinaya, maxaan samaynaa u leey, shidaalkeenniyaa la garaacaya. dagaalkii haddaan galnana dadkii ku jirayaa waxba ka keeni laha. maraykankii gantaalaha difaacaan soo dhigay, wax walba waa seef. israa'iilaan difaacaya, saldhigyadeeda waa la difaacayaa. meeqaa nala ku waday gantaalaha difaaca cirkaa meel kasta la dhigay, oo maraykanku waa uu soo raray dagaalka. waxa dib loogu dhigay gantaalahaas aaway gantaali. kuwii sacuudiga yaala aaway, kuwii kuwait la dhigay aaway, kuwii qatar la dhigay aaway. maaragteen marka waxay leeyihin dagaalka haddaan galno hadda meelaha maraykanka iyo danaha iyo shirkadaha uu wax ku leeyahay ayaa hadda la duqaynayaa. laakiin haddaan dagaalka galno maxaa xal noo ah? boqorka gurigiisaa jugta laga saarayaa. marka cabsidaasna way ku jirtaa. khaliijkii meelay aadaan marka male. dagaalka iiraan waxay ka naxaysa male, wax ay ka naxayso maanta ma jirto. aayatullaahigeedii waa la cunay. inta kalena shahaadaan qaadanayna ay dhaheen waxa hub ay haystaan inay dhulkan ku faarujiyaan ay rabaan. marka warkoodu waa cad yahay. haddaba marka aan idin tusoo wararkii ugu dambeeyey ee laga qoray arikan. telefishinka aljaziira wuxuu soo xiganayaa mas-uuliyiin sacuudiga. waxaa la leeyahay sacuudigu waxay sheegeen inay hadda damiyeen oo ay xakameeyeen dab xoog leh oo ka kacay goobaha shidaalka laga sifeeyo oo laga soo saaro deegaanka la yidhaahdo ra'su tanuura. wakaaladda wararka ee sacuudi arabiya ayaa goor dhow sheegtay, iyadoo soo xiganaysa wasaaradda tamarta ee sacuudiga, in dab xoog leh oo ka kacay goobaha shidaalka laga soo saaro ee sacuudiga, gaar ahaan deegaanka la yidhaahdo ra'su tanuura, in markaa la damiyey. waxayna sheegeen inuu ka dhashay firirka qaraxyo ka dhacay meesha weerarada iiraan ay soo qaaday. haddaba dhanka kale iyaduna waxaa soo baxaya warar sheegaya dab xoog leh ayaa isaguna ka kacay goobaha shidaalka ee kuwait, kadib markii la sheegay in firir iyo qaraxyo ay soo gaareen. wasaaradda iyaduna dhanka tamarta kuwait ayaa arrinkaa ka hadashay. dhanka kale waxaa la sheegayaa magaalada dooxa, xarun shidaalka ah, iyaduna in markaa la sheegay in ay weeraro ka dhaceen oo dab xoog leh uu ka kacay. waa ujeedaan carabtii waa lagu raftay maanta. meel laga jiro iyo meel kale lama yaqaano, waa la rafanayaa. meel kasta dabaa kacay. iiraan waatay ku hanjabi jirta, yaa nala soo aadin. haddii nala soo aado gobolkan dhan waa gubanayaa. meeqaa halkan ka sheegayn, meeqaa halkan laga sheegaayo. marka siday moodayeen si ka duwanaa soo baxday ala leeyahay. waxaa leeyahay nimankan waxay islaayeen aayatullaahiga ka bilaaba mas madaxa laga dilaa. soomaalidu tiraahdaa nimanka madaxa ka dila waa khalkhalayaan. ciidankii qaar isdhiibayo nimankii markii aayatullaahiga la cunayayba soo karaar qaateen.
waxaaba laysleeyahay war aayatullaahiga amauba celcelinayay nimankan war carabta isku aadinin u lahaa hadda nin walba lugtaa furan nin sarkaala wuxuu sheegay saraakiisha ciidanka waxaa la siiyey amar nin walba meesha uu joogo go-aanka asagaa iskalaaliyin madaxdii kalena meelahay ku kala jiraan waddanka marka xaaladiisu saraakiisha ciidanka gantaalka ninka rida asaa amarka siinaay meeshay la noqoto inuu nagta ka saaro uu ku dhufanaa marka sheekadii marka halkaasay maraysaa maxaa soo haray marka nimankii israa'iiliyiinta ahaa maxay leeyihiin maraykanow yurubey hubna la soo gaaray goormee marka hubna la soo gaara ay bilaabatay dagaalka 4 maalmooda socdaabe gantaalihii yaa dhammaadeen dhehe gantaalihii oo gantaalaha looga hortegayay waa gabaabsi awalba xoogaa fiican maysan gantaalihii yaa dhammaadeen marka meel walba waa kana ujeedaan khaybar wuxuu ku da-ay xafiiskii netanyahu meel walba iiraan ay rabto hawadii qabsatay jugtee ku haysaa awa gantaalihii difaaca waa dhammaadeen gantaalhana laga soo gaareen dheh oo maxay ku dhammaadeen waxay ku dhammaadeen aan lagu leeyahay intaysan jugta culus imaan daroon isaa horta lagugu wareerinaa daroon halka ka soo gala inta ka soo gantaalihii daroonkii la dagaalamayaan daroonka laftirkiisaaba wuxuu wadaa intaasoo qaraxa meeshuu ku dhaco waa la hubaa wax badanuu ka keenaa war badanuu ka keenaa marka darooniskii intay jugjug ku sinayaan alaabta khaybar iyo faatax iyo imaanaya jugta culus markaasaa gawda laga saaraya hadda marka maxay leeyihiin waana lala soo gaaray gantaalihii ugu horreeyay iyo hubkii ugu horreeyana soo gaaray cabaadaa bilowd iiraan cid wax nala soo gaariyo kan iyo ma jirto marka nimanka waa la kululeeyaa lagu leeyahay aan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay iyaduna telefishinka aljaziira ayaa qoray wuxuu leeyahay israa'iil waxay sheegtay inay heshay shixnado huba oo cusub oo markaa militariga loogu talagalay wasaaradda difaaca israa'iil waxay sheegtay diyaarado waaweyn oo xamuula oo hub wada inay israa'iil ka soo degeen oo markaa loogu talagalay in israa'iil ay markaa isku difaacdo nimankan marka waa ujeedaan hanala soo gaarooy gantaalkii waa dhammaadayey waxaan wax ku celinayna male halkaas marka hawshaas halkaas waa maraysaa meesha kale cusub waxa waaye xisbullah waxay leeyihiin waxaanu garaacnay goobo muhiim ah israa'iilna waxay leedahay baalkii naciim qaasim wadaadka ugu sarreeya sheekha liraa naciim qaasim ugu sarreeya xisbullah aan dilaynaa kaasaa hadda ku maqannahay waa dilaynaa kaas dowladdii lubnaan barashadaa la saaray maraykankii israa'iil waxay leeyihin nimankaa joojiye dowladdii waray soo saartay waxay leedahay xisbullah waxba waddanka kama ridi kartid dagaal ma geli kartaan mamnuucaad tihiin waraa annaga ma idin dhegaysanayna ali gantaalkan hadda israa'iil uu ku soo jeedaay adinkaan isku soo jeedinin adinka nimankiina lubnaaniyiinta oo qaraabada ha sheekadaan soo dhexgelin annagu ma ka kaftanay leeyihin aayatullah ayaa la cunay soo moogediina aargoosiisaa ku jirna dheen marka sheekada iyaduna halkaasay baraysaa dhanka kale war hadda soo dhacay aan idin tuso waxaa leeyahay saldhigga militariga ciidanka britain uu ku leeyahay qubrus ayaa lagu kala cararay oo ciidamadii waa ka qaateen ingiriiska haddaba waxaa sidoo kale la sheegayaa dhammaan saldhigyada militariga britain ee qubrus in la faarujiyey oo ciidankii ingiriisku ay ka kala carareen qubrus waaye iiraanaa nagta ka saartay jugtii ka saartay waa la kala cararay marka sheekadan nin baa wax laga weydiiyey aljaziira waxaa la yidhi saldhiggan iiraan maxay ka doontay iiraan marka laba arrin muudhaayo ee ka doontay dagaalkii 12 maalmood netanyahu saldhiggaanu ku dhuuntay yidhi u fiirsadayaa saldhigga ingiriiska waa lagu kala cararay lagu leeyahay qubrus ku yaala dagaalkii 12 maalmood halkaasoo uu cararaa layidhi meesha ku dhuumanayay wuxuu iskaga kaa dhigaa nin meesha jooga hadda iiraan marka waxay meesha u tagtay odagayaa la soo salaamayay lacalla hadduu meelaha joogo waa kaa daba nimid camal marad ninkii marka waa la raadinayaa meeluu ku dambeeyo marka lama yaqaana ugu leeyahay marka saldhiggii marka hadda waxay leedahay aljaziira ikhlaa lagu sameeyey waa maaragtay waa laga guuray ciidankii britain waa laga qaatay haddaba marka qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa wararkii goosgooska ahaa ee hadda intaa barnaamijka ku jirna soo dhacay ayaanu idinla wadaagay
kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena qaybihii ugu dambeeyay waliba qaybtan waxaynu ugu talagalnay inaynu warar kooban oo muhiim ah qaybta la yiraahdo akhbaar caajila ama wararka khabar caajilka oo Al-Jazeera wararka degdega ah aan halkan idinku soo koobo haddaba marka wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan inuu dhaawacmay ninkii madaxda u ahaa hay-adda gurmadka degdega ah ee Tehran kadib markii la duqeeyay Iran maanta wakaalada tasniim ee Iran ayaa sheegtay in hay-adda gurmadka ay sheegeen in ninkii madaxda u ahaa uu ku dhaawacmay weerarkii ugu dambeeyay dhanka kale wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan iyaguna oo kamid ah wararka degdega Al-Jazeera ay soo diyaarisay in imaaraadku ay sheegeen inay ka fakarayaan galabta in qaar kamid ah duulimaadyadii xanibmay ee Dubai soo aadi lahaa in dib loo howlgeliyo airportka Dubai inkastoo xaaladdu wali cakiran tahay weeraro dhinaca cirka ayaa waxaa la sheegay in lagu qaaday magaalada la yiraahdo Sur ee ku taala koonfurta Lebanon halkaasoo Israa'iil ay weerar ku qaaday safaaradda Mareykanka ee Beirut ayaa muwaadiniinta Mareykanka ugu baaqday in aanay wax safara ku soo aadin Lebanon dhanka kale waxaa la sheegayaa Israa'iil inay weerartay dhinaca koonfureed ee Beirut iyadoo sheegtay saldhigyo inay halkaa ku weerartay dhanka kale dowladda Qobrus ayaa war ay soo saartay waxay sheegtay annagu dhinac kama nihin waxa dhacaya oo macnaha weerarka lagu qaaday saldhigga Britain annaga maartay kuma jirnay tiri Iran annaga na soo aadinin saldhigiina lay ku ekaada haddaba wararka kale ee soo baxay waxa kamid ah inay dhimatay xaaskii aayatullaahiga Iran kadib markii la sheegay in dhaawac hore u soo gaaray ay markaa u geeriyootay zawjatu murshid al-Irani ayaa yiraahdaa sida ay qortay wakaalada wararka Iran ee la yiraahdo tasniim iyaduna warka ay qortay amiirka qadarna wuxuu goordhow telefoonka kula hadlay madaxweynaha Ruushka waxaana ka wada hadleen xaaladda waxa laga qaban karo hay-adda abaanduulka ciidamada Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay in ay filayso inay kordhaan khasaaraha ciidanka soo gaaray ee gobolka ku sugan marka wararkaasuna waxay ahaayeen warar degdeg ah oo inta aan hadda barnaamijka ku jirnay iska soo daba dhacay waan idin soo ururin doonaa haddii aan laydmo warar kale iyo akhbaaraad kale wixii soo kordha ku xirnaada mar walba barnaamijyadeena xaqaa'iqa ku salaysan innagoo mar walba idinla wadaagna macluumaadka iyo wararka xaqiiqda ah oo ay soo tabiyeen warbaahinta caalamka ayanu halkan idinkaga soo gudbinaynaa haddaba haddaad cusub tahay ha iloobin subscribe inaad ka tiraado channelkeena YouTube-ka si aad u hesho macluumaad xaqiiqo ah oo ku saabsan xiisadan taagan iyo dagaalada socda haddaad Facebook nagala socotana follow garay inta aan goordhow iyo barnaamijyo kale kulmayno nabadgelyo